بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan insha Allah aan nila wadaagayaa alaab yar oo fudud oo macaan badan oo caano laga sameynayo. waa dessert aad u qabow una macaan kaale iska arag ah ayaan rabaa insha Allah inaan kasoo tuuro. maasha Allah, halkaan waxaa iigu jira caano. waxaa waaye 2 koob iyo bar aan u baahannahay. halkaan waxaan ku haystaa waa maxaa la yiraahdaa coconut ama qumbe. inta waxa aan iigu jira waa 4 qaando adiga oo sokor ah. intan waxaa iigu jira waa vanilla ama carfiso. halkaana waxaa ku hayaa oo asagana ay tahay half cup oo waranga ah iyo 2 xabo oo cheese slice ah. intaas ayay ka koobantahay. kadib hada dabka ayaan u shidanaynaa. waa inay ahaataa dab dhexdhexaad ah. bismillah. markaa dabalanjada bilowgaynaa. marka slice cheese-kaas aad ay muhiim u tahay smoothie u sameynee. waxay leedahay borotiin maasha Allah, wax walba isku dheelitiran tahay. marka tartiib asaas ugu walaanjinaysaa gacan qaandada ayadaa ku milmayso. waxaase dhooti eberay noqonayaan. markaa tartiibtaada saa ugu walaaq, ka joojinin qaandada. saas ayna u wadnaa. hada dabka xoogaa qandac waaye, waa sii wadaynaa xoogaa oo jeedaa inuu xoogaaba marba soo dhalaalayo. kaala arag waaye. marka waxay u baahan tahay in maaragta si deganaan ah oo tartiib ah inaa maaragta aad gacanta ugu haysid. haddii laakiin aad ka joojisid aad ka tagtid waa iskaga kaa waxaysmanaa. still maxaa lahaa qandac waaye. saas ayaan rabnaa ilaa maaragta jiiska uu ku milmayo. tartiibtaasaan usoo karinaynaa. marka marba xoogaa waa sii waxaysmayaa. tartiibtaada leh u wade saas tartiib. kadib asagaa ku milmaayo baabaa waxaasoo dhan. kaala arag bay howsha maraysaa. dabkiina still sidii noogu gaabsan yahay. halkaas markay marayso vanillaan ku darsanaynaa ama waxaan ku darsanaynaa carfisada. waa isku walaanjinaynaa. marka ujeedaa sibeelay kusoo baxday. markaa jiiskii oo dhan waa ku milmay. alaabtaas quruxda badanay kusoo baxday. digsigiina waa kaasaa. smoothie-gaasaan ka rabnay maasha Allah. way socotaa wax yar ka bacdina waa ka dejinaynaa. wixii oo dhan waa ka isku milmay. kaala arag kusoo baxay ujeedaa maasha Allah. marka halkaas markay marayso waa diyaar. ujeedaa inay soo aruuray. saas waa inay ku noqotaa. ujeedaa
بس هدو ديار وقت جنينة جدا وانو ديار مركب 3 ساعة كبعدي ونوصو بحاي فرنجيركا وسو دقي marka hadda waxaan ku shubanaynaa saxniga